Asalaamu calaykum. Waxaad hadda daawanaysaa mid ka mid ah muuqaalada kuwooda loogu muranka badan yahay. Laga soo bilaabo kontomeyadii, qarnigii tagay tobaneeyo qof ayaa sheegay inay arkeen waxyaabo duulaya oo aan la garanayn. Qaar ka mid ah waxyaabaha ayaa ku midabaysnaa kalaro aan la garanayn, waxayna u dhaqdhaqaaqayeen waddooyin aan caadi ahayn. Inta badan waxyaabaha ay dadka soo sheegayaan waxay isugu tageen hal mandiqad juquraafi, waana gobolka Mareykanka ku yaala ee Nevada, gaar ahaan inta u dhaxaysa afar geeskan aad ku aragtaan qariirada meel u dhow xarunta baaritaanada Nevada. Isku soo bax la isaga wacay Facebook bishan September ee soo socota waxaa ka jawaab celiyay in ka badan 1 milyan oo Mareykan ah si ay ugu duulaan saldhigga military ee Mareykanku leeyahay, ka oo ah saldhigga ugu sirta iyo qarsoonida badan taariikhda Mareykanka inta la xasuusto. Taa waxay ka dhigtay in ciidanka cirka Mareykanka ay u diyaar garoobaan khatar walba oo soo wajahda. waxaana meesha loogu magac daray Area 51 ama mandiqada 51aad. 2014 ayay ahayd markii ugu horeysay oo madaxweyne Mareykan uu ka hadlo mandiqada 51aad ee siraha ku duugan yihiin. mandiqadan waxaa si rasmi ah loogu yaqaanaa barxadda tababarka tijaabooyinka ee gobolka Nevada, waxaana ku wareegsan ilaalo aad u adag oo ka mid ah ciidamada cirka Mareykanka. mandiqadan waa qayb ka mid ah saldhig military, waxayna 130 kiiloomitir ka jirtaa waqooyi galbeed Las Vegas. magaceedan waxaa laga soo minguuriyay meesha ay kaga taalo xarunta baaritaanka Nevada oo ah meesha ugu badan ay ka dhacaan tijaabooyinka nuclear-ka Mareykanka sameeyo. sidoo kale mandiqadan waxay leedahay magac kale oo laga minguuriyay badda u dhow ee qalalan. marka la isticmaalo Google Map, Area 51 ama mandiqada 51aad waxay ka kooban tahay dhismooyin leh dabaqyo xadidan, waddo diyaaradaha ku soo degaan, iyo waddo mar dhow laga dhex dhisay badda dhexdeeda. xukuumadda Mareykanka waxay mamnuucday in loo soo dhawaado mandiqadan, waxayna ku qoran yihiin boorar waaweyn. boorarka kuwa hore waxaa ku qoran in haddii aad dhaafto laga qaadayo ganax lacageed, kadib waxaa ku xiga in xabsi lagugu xukumo. tan u dambaysa waxaa ku qoran in xabad lagugu dhufanayo. dadka qaar ayaa xukuumadda Mareykanka ku eedeynaya inay ku qarinayso halkan tiknoolajiyad sir ah iyo haraadi suxuunta duusha ah, kuwa oo ka yimid dibadda dhulka. waxaana loo yaqaanaa UFO oo ah eray cilmiyeed laga soo gaabiyey Undefined Flying Objects, oo micnaheedu yahay waxyaabo duulaya oo aan la garanayn. Soomaaliduna waxay u taqaanaa suxuunta duusha. website-ka National Geographic waxa uu sheegayaa in 90% dadka ama warbixinada sheegay inay arkeen suxuunta duulaysa ee been tahay lana fadeexayn karo si fudud, halka 10% ay leeyihiin tiro warbixino ah oo ay diyaariyeen kormeerayaal lagu kalsoonaan karo. anagana waxaan diiradda saaraynaa 10kan. sheekadu waxay bilaabatay dhammaadkii kontomeyadii kadib markii ay faafisay jariiradda Reno. warka waxa uu dhacaya sidan: doomo ama suxuumo duulaya ayaa maraya cirka Arizona. markii uu bilowday dagaalkii qaboobaa, mandiqadan waxaa lagu tijaabin jiray diyaaradaha wax jaajuusa ee loo yaqaano U2. sidoo kale mandiqadan waxay xukuumadda Mareykanka u isticmaashay inay ku tijaabiso diyaaradaha cusub ee ku duula fogaan cireed aad u sarreeya sida Oscar F-117. warbixintan waxaa lagu sheegay codsi ay u gudbisay jaamacadda Washington hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA in ay siiso xog ku saabsan mandiqadan. Area 51 waxay dhacdaa meel aan u dhoweyn dariiq highway ah. warbixino laga qoray mandiqadan ayaa sheegaya in shaqaalaha ka shaqeeya mandiqadan sirta badan ay diyaarad ka soo raacaan garoonka Las Vegas, iyagoo soo raacaya diyaarado aan wadan wax aqoonsi iyo tilmaan ah marka laga reebo midabka gaduudan. waana diyaaradda kaliya ee loo ogol yahay inay maraan cirka mandiqadan iyo meelaha u dhowga. mandiqadan waxay fikrad u noqotay qorayaasha filimada, kuwa oo ka sameeyay filimo badan oo ku saabsan mandiqadan. sidoo kale goobaha u dhow waxay soo jiidatay dalxiisayaasha jecel inay wax ka ogaadaan waxyaabaha qarsan. intaas ayaan ku ekeenayaa mawduuceena maanta. wassalaamu calaykum.